ka bidnayn biil markuu gababo 60 sano gaaro 70 sano gaaro yaa xal leeyahay tawakkal Allah wadankaada ku laabo waad aragteen dad waaweyn oo Soomaali ah oo khaliijka ka imaaday kuwa galbeedka Yurub ama Mareykan ku nool waxay uga duwan yihiin Soomaalida khaliij ku nool in markii ay gaboobaan ugu yaraan ay meesha sii deganaan karaan laakiin khaliijka hadaad gabowdo oodan shaqo aadan haynin waxa mustaxiil inaad ku sii noolaato waa inuu qofka fiilka noqdaa laakiin dadkaas hadii ugu yaraan ganacsi lahaan lahaayeen xaalkooda halkaas ma gaari lahayn nidaamka caalamka hogaaminaya maanta dhaqaale ahaan hadafkiisu waa in bani aadamku ku noolaado adoonsi iyo faqri dhibaatada dhaqaale ee caalamka ku dhufatay wixii ka bilowday 2008 waxay sababtay in kumanaan iyo waliba malaayiin Mareykan shaqo waayaan taasoo ka dhigan in ayna awoodin inay iska bixiyaan deynta guriga ay degan yihiin kadibna waxaa dhacday in guryaha laga bixiyo wadooyinkana ku soo dhacaan wax ay haystaan malahan waa Mareykan malaayiin ninkan shaqada laga ceyri shalayto markii uu labistay uu sii ka lahayay wuxuu aaminsanaa inuu yahay nin shaqeeyo oo nadiif ah laakiin wuxuu ku jiray adoonsi sababtoo shaqadu waa adoonsi waad aragtaan Soomaalida qurbaa xaalkooda sida uu yahay siday u ordayaan oo sii ka lahayaan waxba iyagoon haynin ay saacad gabowga ku dhici istaag 60 sano ayaad gaartay gadaal u fiiri waqtigaad soo cuntay waxna ma haysid waxna maad xaqiijinin noloshaadu waxaad ku dhamaysatay orod iyo inaad shaqo aanan waxba aadan ka faa'iideynin aad subaxdeen u ka lahdo habeenkina aad daalanaad imaado aakhirey adduun waxna kala aadan haynin waxna uusan xaqiijinin murug iyo deyn waxaanan ahayn noloshiisa aysan ku soo biirin laakiin waxaa jira dad fara ku tirisa oo fahmay meesha ay lacagta jiifto waa ganacsiga noocu doon ayuu noqon karaa hadduu doono ganacsi xagga internetka ganacsi kale oo caadi ah rasuulka sallallahu alayhi wasallam waa kii ammaanayay ganacsiga yirina barakada iyo risqiga wuxuu ku jiraaba ganacsiga aslan waa arin la yaqaan taariikhda bani aadamka maalintii nabi aadam dhulka la keenay ilaa hadda waxaa soo maray malaayiin qof dad qani ah haddaad akhriso taariikhdooda ma jira hal qof oo ku noqday qani shaqo uu qof kale u qabtay nin shaqaale oo noqday qani taas ma jirtaba aslan qof shaqaale oo qani noqday arrinkaas waaba arrin aanan dhacaynin dab iyo biyo ay isku yihiin qof u shaqeeyo meel shirkad ama xukuumad xitaa qanina noqday arrinkaas mustaxiil adduunka kama helaysid waxaan ula jeedaa in uu noqdo qofka shaqaale shirkad ama dawlad ama xitaa meel kale oo shaqeeyo arrinkaas waa mustaxiil inaad ku noqoto qof hanti leh waxaad isweydiisaa Bill Gates ninka shakhsi ahaan maanta adduunka ugu qanisan sidoo ku helay lacagtaas inuu shaqaale ahaa maya inuu xukuumadda Mareykanka xafiis u fadhiyay maya wuxuu ku gaaray shaqo asaga uu qabsaday shaqo asaga uu leeyahay horumarinta barnaamijyada kombiyuutarada dhaqaajiyo inkastoo reerka asaga uu ka dhashay ay ahaayeen reer aristaqraati ah oo siyaasadda ku jiro bunuugta ku jiro laakiin Bill Gates ma dhihin aaba adeer hebel ila hadal adeer George ila hadal gabadha in adeertay duqa John oo dhalay ila hadal inay shaqo ii raadiso la arrinkaas dhan ma sameeynin maskaxdiisa ayuu miiray kadibna Microsoft ayuu aasaasay waad aragtaan maanteeto xaalkiis Steve Jobs aasaasay shirkadda Apple ee Mareykanka shirkad ka lacag badan wadamo badan lacagta ay haysata shirkadaas iyo qiimaha ay faa'iido wadamo badan ay ka lacag badan tahay Afrikaan iyo caalam kale ba isku jiro waxa unkay hal nin fiiri siday ahaayeen bilowgii rafaad iyo daal ayaa ka muuqda wajiyadooda Mareykanka ayay joogeen oo xilligaas waliba muhaajiriinta ay ku yaraayeen meel kastana xilligaas shaqo taalay laakiin waa khiyaano weyn in qofku aqbalo shaqo cid kale inuu u shaqeeyo gurigan idin muuqdo ayuu ku soo barbaaray Steve Jobs kana bilaabay unkida shirkadda Apple ee maanta trilyoonadka lacagta leh waxay ka bilaabatay shirkadaas qol yar oo ka mid ah gurigan waliba qaybtan bidixda jirto
ee garaashka gawaarida la istaajiyo. halkaasuu ka shaqayn jiray, habeen iyo maalin maskaxdiisa ku meeri jiray Steve Jobs. Cabdiraxmaan bin Cawf radiyallahu anhu wuxuu ka mid ahaa dadka ugu lacagta badan uguna qanisan jasiiradda Carabta. rasuulka iyo saxaabada Madiina ayay u hijroodeen ayagoo ka soo cararay dhibaatada kufaar Quraysh ee Makka. kadibna markii ay Madiina gaareen, xaalku wuxuu ahaa sidaan: rag Makka ka soo cararay oo lagu magacaabo muhaajiriin, wax hanti aan lahayn, waxna aan haysanin, iyo dadkii magaalada deganaa ee soo dhaweeyay una gargaaray oo lagu magacaabo gargaarayaal Ansaar. muhaajiriintu waxba ma aysan haysanin, wax hanti ma aysan haysanin. rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaa qof Ilaahay xikmad iyo caqli iyo xallin mashaakilka siiyey. sidii mashaakilka loo xalliyo rasuulka ilbiriqsi kuma qaadan jirin. si arrinkaas looga hortago dadkan soo hijrooday ee aan waxba haysanin, wuxuu bilaabay in uu walaaleeyo qof kastoo muhaajir uu la walaaleeyo qof Ansaari ah. hebel muhaajir, waxaad walaalatay hebel oo Ansaari ah, waxuu cunayo la cun, la noolow, gurigu degan yihiin la deg. xaalku waa sidaas. Cabdiraxmaan bin Cawf oo ka mid ahaa muhaajiriintii ayuu rasuulka sallallahu alayhi wasallam la walaaleeyay nin Ansaari lagu magacaabo Sacad bin Rabiic. Sacad wuxuu u soo bandhigay Cabdiraxmaan inuu la wadaago waxa uu haysto, laakiin ibn Cawf wuxuu ku jawaabay: Allah kuu barakeeyo waxa aad haysato ee suuqa i tus fadlan. Sacad walaal, suuqii ayaa la tusay Cabdiraxmaan bin Cawf, kadibna wuxuu bilaabay ganacsi iibin iyo soo iibin. muddo kadib Cabdiraxmaan bin Cawf wuxuu noqday ragga ugu qanisan jasiiradda Carabta oo dhan. maalin ay dadka Madiina bannaanka u soo baxeen ayagoo la yaaban kolonyo ka kooban